muuqaalkan kooban waxaan rabaa inaan idinkula wadaago waa degdeg doorashada isla reebka shalay ka dhacday gobolka Michigan ayaa natiijadeedii ay goor dhow soo baxday waliba xilli dambe ayay xaggeena noo tahay oo 9 saac iyo bar habeenimo ah. doorashadan waxaa ku tartamayay doorasho isla reeb ay ahayd kursi aqalka sanadka ayaana loo tartamayay 2 xubnood oo dimuqraadiyiin ah ayaana ku tartamayay. mid kamid ah waa nin muslim ah oo waalidiintii asal ahaan ay ka soo jeedaan wadanka Masar oo 41 jir ah oo Dr. Cabdulrahmaan Mohamed El Sayed la yiraahdo, waxaana uu la tartamayay haweeney hadda ku jirta aqalka wakiilada ee Koongareeska Mareykanka oo la yiraahdo Hailey Stephens oo ilaa iyo sanadkii 2019 ku jirtay. doorashadan sababta ay muhiim ugu tahay xisbiga dimuqraadiga iyaga dhexdooda ayaa xitaa isku khilaafay oo xubnana waxay la safteen Dr. Cabdul Sayed, xubno kalena waxay la safteen Hailey Stephens. labadooda midna waa dhexdhexaad, midna waa sidoo kalena progressive oo Al Sayed uu yahay. marka natiijadan waxay ahayd mid si weyn loo eegay ilaa iyo 5 gobol oo doorashooyin isla reeb ay ka dhacayeen ayaana ay qayb ka ahayd doorashadan, laakiin tan ayaa si dhow loola socday. haddaba codadkii iyadoo la tiriyay 90% iyadoo codadkii la tiriyay Dr. Cabdulrahmaan Mohamed El Sayed ayaa waxa uu helay 49% codadkii la tiriyay, halka sidoo kale Hailey Stephens ay heshay 47%. in ka badan 700,000 oo qof ama 700,000 oo cod ayuu helay Dr. Cabdulrahmaan, halka sidoo kale Hailey Stephens ilaa 677,000 ay heshay. marka codadka lagu kala guuleystay sida halkan ka muuqata waa ilaa iyo 2 cod oo kaliya ayaa looga guuleystay. marka sida muuqata hadda isaga ayaa waxaa November uu la tartami doonaa doorashooyinka xilliga dhexe marka la gaaro hadda wax ka yar 3 bilood ay ka harsan tahay. Mike Rogers oo madaxweyne Trump uu taageeray ayaa uu la tartami doonaa marka November la gaaro. marka kursigan sababta xisbiga dimuqraadiga uu muhiim ugu yahay waxay tahay waxay doonayaan aqlabiyadda labada aqal ama midkoodba inay soo ceshtaan. dhinaca aqalka sanadka oo kale waxaan ognahay hadda aqlabiyadiisa xisbiga Republikaanka ay haya waxaana uu ku hayaa 53 dhibcood, dimuqraadiyiintuna waxay leeyihiin 47 dhibcood. marka dimuqraadiyiintu waxaa looga baahan yahay in 47 kursi mid kamid ah aysan lumin, 4 kursi oo dheeraadana ay helaan si aqlabiyadda ay ula wareegaan. marka gobolada ugu muhiimsan ayaa gobolkan uu kamid yahay, sidoo kale gobollo kale ayaa jiro sida Texas uu kamid yahay, isla markaana North Carolina uu kamid yahay sidii maanta warkii ugu dambeeyay baan idin sheegay oo tartan xoogan uu ka jiro. marka Dr. Cabdul Sayed hadda waa uu ku guuleystay doorashadii shalay ka dhacday gobolka Michigan. doorashadan isla reeb ayay ahayd. marka isaga haddii uu soo gudbayna Mike Rogers oo Trump uu taageeray ayaa November uu la tartami doona. dhinaca haweeneydan Hailey Stephens oo hadda aqalka wakiilada ee Koongareeska ku jirta waxay taageero lacageed ay ka heshay ururo xiriir la leh ururka AIPAC oo Israa'iil taageera. Dr. Cabdul Sayed isagu waa uu diiday, waxaana uu yahay kursiga ugu qaalisanaa xisbiga dimuqraadiga ee doorasho isla reeb ah, waxaana 63 milyan ayaa xayeysiin ay ku bixisay haweeneydan Hailey Stephens. 30 milyan oo kamid ah ururo xiriir la leh AIPAC ayay uga timid. marka waxyaabaha uu ku ololeynaya waxaa kamid ahaa Dr. Cabdul Sayed in dadku kaar caafimaad ay wada helaan, in ciidamada ICE meesha laga saaro, Mareykankuna inuu joojiyo taageerada military oo dowladda Israa'iil uu siiyo. marka waxyaabaha ayaa kamid ah waxyaabaha uu ku ololeynayay, isla markaana dadku hadda ay ku doorteen Novemberna. hadiiba hadda ay shacabku doorteen Novemberna waxaa laga yaabaa marka inuu ku guuleysto. waxuu noqonayaa marka haddii November la doorto xubintii ugu horeysay oo muslima oo aqalka sanadka soo gasho, isla markaana waxa uu sheegay in uu wax weyn ka bedeli doono aqalka sanadka markuu tago. xitaa wuxuu yiri gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee aqalka sanadka Jack Schumer haddii aqlabiyadda aqalka sanadka xisbiga dimuqraadiga uu la wareego, hogaamiye si ma ahaan doono Chris Van Hollen oo isagu laga soo doorto gobolka Maryland ayaan ku bedeli doonaa oo gudoomiyaha aqlabiyadda noo noqon doona, maadaama hadda Jack Schumer uu kamid yahay xubnaha ka soo horjeestay El Sayed oo gabadhan Hailey Stephens uu taageeray. isaguna waxa uu sheegay in uusan u codeyn doonin in gudoomiyaha aqlabiyadda uu noqdo haddii aqalka sanadka ay la wareegaan xisbiga dimuqraadiga. madaxweyne Trump ayaa la weydiiyay tartanka u dhaxeeyay Al Sayed iyo waliba gabadhan Hailey Stephens. wuxuu yiri midna waa communist midna waa socialist, marka labadoodu waxba iskuma kaydhamaan waa damar iyo labadiisa dhagood ayaa ninkii Trump u yiri. You have
a communist versus a socialist. That's the way I look at it. marka doorashadan oo ahayd mid si weyn loo sugayay hadda waxaa warbaahinada Mareykanka ahi ku dhawaaqeen waliba xilli dambe iyadoo Mareykanka ay ka tahay in Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Al Sayid uu ku guuleystay waxaana uu sheegay oo taageerayaashiisa hadda uu ka codsaday in 13 toddobaad ayaa ka dhiman doorashooyinka xilliga dhexe sidii ay u garab istaageen inay u garab istaagaan isla markaana doorashada November ay kursiga saaraan marka waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordho haddii alla idmo saacadaha soo socda ayuu kolley taageerayaashiisa la hadli doonaa iyo warbaahinada kala duwan wararkeena dambe ee maanta ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii alla idmo laakiin warkan degdeg ah ayaan idila socodsiinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Al Sayid in doorashooyinka Israa'iilka ee xisbiga dimuqraadiga ee shalay ka dhacay gobolka Michigan uu ka guuleystay Hailey Stephens aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta stay tuned wararkeena dambe ee soo socda haddii alla idmo waa mahadsantiin